maantana Somaliland baa lagu soo duulay waxaana naga go'an inaan qarannimada Somaliland annagoo reer Somaliland inaan difaacno nimankan jabayay waxaan la yaabaa nin lahaa dad baa si lagu shubayaa kuwa si dhilay waa lagu shubayaa iyo ku leeyahay lagu shubi maayo waxaan ku talinayaa waliba anigu in axad qarameedkii boorima ka dhacay in dib loogu noqdo soo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi kooban aan la yeelan doono xildhibaan Yaasiin Cumar Yaro oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa xildhibaan ku soo dhawow studio Asab TV oo ku dhawahay waad maasantay ismaan sidaan ognahay Somaliland waxaa ka jira xaalado kala duwan oo ugu horeysa xaaladda dagaalka ee gobolkaasi Sool saad aragtaa xildhibaan oo arrinta waxaan arkaa arrin qurux badan waqtigan runtiina waa arrin Somaliland gudaheediya arrintaas aan arkaa inay u baahan tahay in wixii dhacay way dhaceen dhiig joojin la sameeyo runtii intii naga dhimatay way naga dhimatay laakiin halka lagu hakiyo nabad lagu soo dabaalo runtiina reer Laascaanood waxaan leeyahay waa laga gardaran yahay qalad kastoo dhacna waa la daba qabtaa laakiin waxaa ka sii xun inuu dhiigu sii daato waxaynu u baahannahay Somaliland weligeed ba cidma dhex geli jirin iyadaa isqancin jirtay in maaragtay laga saaro cunfiga iyo maaragtay qabyaaladda qaladka ciddii lahaydna la saaro nabadna lagu soo dabaalo dhiig joojinna la sameeyo xildhibaan markaynu taa ka gudubno waxaa jira ciidamo kala duwan oo ka yimid deegaano kala duwan oo soo gaadhay magaalada Laascaanood qaarkood waxaynu arkaynay fariimo kala duwan bay u dirayeen shacabka reer Somaliland iyagoo deegaamo kala duwan ka hadlayay arrintaas aad arkaysaa adigu wallaahi waan arkay ciidamo badan oo hanjabaya iyagoo weliba jilib oo isu sheegaya runtii qarannimada Somaliland waa la difaacaya mid baana laga yahay ciidanka qarankana waa la garab taagan yahay nimankan jabayay waxaan la yaabaa nin lahaa dad baa si lagu shubayaa kuwa si dhilay waa lagu shubayaa iyo ku leeyahay lagu shubi maayo waa isku mid dad hadduu soo gaadhan haba ku shubo ama hadduu qabtaba taas runtiina Puntland waxaan leeyahay Puntland daandaansiga iyo baabuurta ka yaacaysaan kala joojiya iyo nimada yaryar ee soo lugoynisaan anigu shakhsiyan ma taageersan qof Soomaaliyeed meeshu doonaba ha joogo inuu xabad ku dhinto Soomaali dhexdeeda in yar haddaan ku xasuusiyo Ismaanow isticmaalku markay arkeen gaarisa ilaa Jabuuti maabka markay arkeen waxay ku tashadeen inay dadka kala qaybiyaan maanta wadiga arkay Somaliland nabadeedii baa markaa loo soo dhigtay iyadana in dhibaato laga geysto dawaanad qiyaasi kartaa maabka intaa la eg dadku sida noqon lahaayeen laakiin wixii la waa shan loo qaybi maantana Somaliland baa lagu soo duulay waxaana naga go'an inaan qarannimada Somaliland annagoo reer Somaliland inaan difaacno waa xildhibaan waxaa jira dad badan oo dhaliilaya qaabka xukuumaddu u maamushay dacdooyinka kala duwan ee ka dhacay gobolkaasi Sool sidoo ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiiladu adoo arrintaa ma aaminsantay waxaan aaminsanahay horta qadarta Ilaahay cid ma celin karto laakiin waxaan aaminsanahay qaabka loo maareeyo inuu qaab qaldan yahay waayo qof dhagax sita iyo qof xabad sita marnaba meesha Falastiin maaha marnaba wuxuuna isla Somaliland yihiin marnaba in dhagax lagu wajaho xabad anigu ma aaminsanayn halka waxaan u arkayaa wax ka duwan in la wada hadlo Somaliland waa la wada leeyahay waxaan ku talinayaa waliba anigu in axad qarameedkii boorima ka dhacay in dib loogu noqdo
somaliland waxaa laga rabaa fikirkan iminka mid ka ballaaran si ay u horumartay in la keeno taasna waxay ku imanaysaa cadaalad iyo in darafyada waxay xaqa u leeyihiin inay beryiin ay xaqa kuugu leeyihiin inaad siiso haddii inta dhexe mar walba tidhaahdo un aniga halayga fur yeelo taa macnaheedu waxa weeye somaliland meel fog lama rabo somaliland waxaa la rabaa un inay markaa koobnaato in yarina qaniis ka noqoto in badanina ay dulmanaato taana wax qaranka iyo dalka soo dhisi karaya uma arkaan oo shakhsiyan sharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu ka hadlay xaaladda gobolkaasi aragtiyo kala duwan baa laga bixiyey saadada kula muuqatay khudbaddu maanta jeediyey khudbad taariikhi ah taariikhda galshay geli doonta calaamadsan oo maanta halka uu musharaxu dhigay ay tahay halkii loo baahnaa ayaan anugu shakhsiyan fikirkayga aanu arkaa ugu dambeyntii xildhibaan xalka maxaad u aragtaa arrinta xalka waxaan u arkaa in qaladka dhacay cidda lahi qaadato oo xukuumaddu qaladka qaadato in dadkaa reer sool la raaligeliyo khasaaraha wixii dhacay la eego qofku inuu qirto qaladkiisa waa guul ka mida guulaha laakiin waxaan ku talinayaa in dhiigga halkaa lagu joojiyo waxaana ila muuqataa axdi qarameedka dhan ee somaliland gashay in dib loo furo waayo qabyo badan baa aniga iga muuqataa maadaama wax la wada leeyahay qabyo badan baa aniga iga muuqataa oo taalla oo u baahan in laga wada hadlo waa in dib loo furaa baan anigu aaminsane waa arkayseen taariikhaha dhacay intii somaliland jirtay weliba intii xukuumaddani joogtay waxaa aada ilaahay ha u naxariisto oo godkana ha u nuuree cali khaliif galeydh hadalla taariikhda galay ayuu ina yidhi waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto haddii maanta ma noola isagu yahay inta nool loogu taliyo runtiina dee arrimo badan wax yeelaya nabadgelyada iyo isku dubnaanta oo arkayseenoo dee ninkii jabuutaay wuu garnaqsaday in badan buu hadlay ninkaasi wuu garnaqsaday horaan hadday tahayna wuu garnaqsaday waxaynu u baahannahay in cadaalad iyo sinaan la helo cid ka fikiraysa insha allah mustaqbalka somaliland oo isu dhanna in axdi qarameedkaas dib loogu noqdo oo dib loo eego oo dastuurka laftiisa dib loo furo waxaan ku talinaya anugu daawadayaal intaasi waxaa noogu dhammaaday waraysi kooban aan la yeeshay xildhibaan yaasiin cumar yar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda hargeysa waxaanu xildhibaanku ka hadlay xaaladda dalka iyo dagaalka ka taagan gobolkaasi sool isagoona diray fariimo kala duwan xildhibaan aad baad mahadsantahay